madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo maalintii shalay ahayd safar shaqo ku yimi magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta kormeer indhaynah ku tagay xeryaha qaxoontiga ee magaalada Berbera iyo dekedda magaalada Berbera oo dhismo ballaaran uu ka socdo. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha dekedda Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor oo ka warbixiyay dhismahan dekedda ee haatan ka socda halkaasi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa marka ugu horeysa waxaa la dhigaa madaxweyne 0.6 cm carakaawa ah oo selected material oo aad u adag oo ka soo qodo halkan haamaha shishadooda aan ku soo qodno ayaanu dhignaa, waanu garaacnaa, waanu kabisnaa, levelkaan ka qaadnaa, waanu tijaabinaa stresska ay qaadi karto iyo culayska ay qaadi karto carakawada meeshaan dhignay ayaan tijaabinaa, sample baan ka qaadnaa. markaasaan levelka markaan dhabayna waxaan dhignaa 5 cm oo very high quality ah. waxay gaari doontaa dadka mustaqbalka intaan halkan joogtay inta ka dambaysa ay gaari doontaa. waxay kordhinaysaa capacity-ga dekedda ayay laabaysaa, saddex laabaysaa. halkan waxaan ugu talagalay konteenaradu markay soo degaan in halkan toos loo keeno dhammaantood markay meeshan ay dhammaato. waxaan ugu talagalay inaan kula madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo isna halkaasi ka hadlay ayaa maamulka dekedda Berbera ku amaanay sida fiican ee hagar la'aanta ee hawsha u wadaan, waxaana uu yiri geesta kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta aqalka madaxtooyada ee magaalada Berbera ayaa ka hadlay safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku joogo magaalada Berbera. waa ogtiin Berbera waxa ku sugan wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud oo soo gaaray shalay gelinkii dambe magaalada Berbera. ujeedada ugu muhiimsan ee ugu weyn ee uu madaxweynuhu u yimi Berbera kasakow in uu indhaynaynayo xaaladda deegaanka iyo gobolka guud ahaanba iyo magaaladan magaala xeebeedda dekedda ugu weyn ee dalkuna ay ku taallo ee Berbera. kasakow inuu u kuurgelayo howlaha shaqo iyo mashaariic hore oo u socotay oo madaxweynuhu hore dhagax u dhigay iyo la xisaabtan inuu eego mashaariicdaasi waxa ka qabyaa iyo waxa suurto galay. waxa uu madaxweynuhu yimi inuu furo laab casri ah oo loo sameeyay wakaaladda haamaha shidaalka ee Berbera. geesta kale waxa uu jawaab adag ka bixiyay wasiirku hadallo ka soo yeeray mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Dayn waa arrintan Soomaaliland qaxoontiga Yemen ka imanaya siday u arkaysay horeyso iyo dambaysaba. haddii ay soo dhex galeen tashuush yar soo dhaweyntii qaxoontigaasi ay Soomaaliland soo dhaweysay, qaabilaadii ay sida wanaagsan u qaabishay, taakulayntii ay Soomaaliland sida wanaagsan u taakulaysay, haddii uu soo dhex galay hadal ama in yar oo tashuush ay timi waxa uu ka yimi oo sababteeda ugu weyn leh waxa weeye waa Soomaaliya mas'uuliyiinta Muqdisho fadhiya ee siyaasadeeyay ee halkaas siyaasad ka dhaxdeeyay ee iyadoo qaxoontigaasi tiraba 5,000 ee sheegayo 3,000 la qaabilay yiri annaga u fasaxnay dekedda Berbera, annaga u fasaxnay dekedda Muqdisho. محمد رئيس العالمي رويال حرمت أقل من تحتوية من